dhammaan xildhibaanada golaha lixaad marti sharafta kale ee inala joogta waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta oo ay sabti tahay taariikhduna ay tahay bishii lixaad toddobadeedii waxaa halkan inooga furmi doona maanta kalfadhigii tobnaad ee golaha lixaad mudanayaaliye marwooyin sida uu dhigayo qodobka 18aad faraqiisa lixaad xeer nidaameedka hanaanka shaqo iyo anshaxa xubnaha tirsigiisu inuu yahay hal isbaar 2002 waxaan xaqiijinaynaa kooromku inuu buuxo iyo in kale xildhibaanada fadhida waa 201 xildhibaan kooromkuna 3 meelood oo 2 meelood way inoo fadhiyaan kalfadhiguna wuu inoo furan yahay waxaan u gudagalaynaa ajandayaasha maanta inoo hor yaalay waxa weeyaan waa hadal qoraaleedkii kalfadhigii 9aad ajandaha labaadina waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhageysiga warbixinta xukuumadda ee 6 bilood ajandaha saddexaad waxa weeyaan bayaanadaas oo kala ah bayaanka go'aaminta xuska maalinta midnimada deegaanka Soomaalida bayaanka labaadna waxa weeyaan bayaanka heesta calanka bayaanka saddexaadina waxa weeyaan bayaanka wax ka beddelka bayaanka maamulka shirkadaha horumarinta bayaanka afaraadina waxa weeyaan waa bayaanka aasaaska sanduuqa jidadka miyiga bayaanka shanaadna waa bayaanka meelmarinta miisaaniyadda dheeriga ee mushaar kororka ajandaha afaraad waxa weeyaan ansixinta xubnihii hore loo magacaabay kalfadhigii hore kadib oon dhaarinayno marka afarta ajanda ayna hor yaala marka ajandayaashan si guud oo duuduuban oo ansixinaynaa kadibna mid baan u galeynaa afarta ajanda inta ogol ee xildhibaana dejiya cidda diidana xildhibaanada cidda ka aamustay haye ajandayaashuna si guud saasay inoogu ansixeen waxaan u gudagalaynaa waa ajandihii noogu horeeyo ah hadal qoraaleedkii kalfadhigii 9aad ciddii fikir iyo dood ka qabta ajandaha koobaad xaqiina aan gacanta u soo celinayaa haye inta ogol dejiya inta diidan inta ka aamustay haye ajandaha hore hadal qoraaleedkuna saasuu inoogu ansaxay waxaan u gudagalaynaa waa ajandaheena labaad waa dhageysiga iyo ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda 6 bilood sani miisaaniyadka 2018 taariikhda Itoobiya si la mid ah sanadihii horeba waxaa mudnaanta dhanka miisaaniyadda la siiyay sidii loo sii xoojin lahaa xasilinta iyo sugidda amniga taas oo ka dhigan kobcinta tirada iyo tayada hay'adaha amniga gaarsiinta kobaca dhaqaale iyo horumar waara dhimista saboolnimada iyo kor u qaadida wax soo saarka tayeynta waxbarashada u diyaargarowga abaaraha dardargelinta iyo xoojinta dakhliga gudaha iyadoo hadafyadaasi sidooda yihiin ayaa haddana waxaa si la mid ah ahmiyad gaar lahaa ajandayaasha heer qaran ee xisbi ahaan la isula qaatay sida ka shaqaynta sidii looga maarmi lahaa gargaarka cuntada ee dibadda casriyeynta magaalooyinka ama corridor development dhisidda goobo dalxiis si kor loogu qaado sektorka dalxiiska ama tourismka saamaynta adeegyada hal goob barnaamijyada Etio Corridors oo kumanaan dhalinyaro lagu barayo adeegsiga IT-ga dardargelinta qaadashada kaarka aqoonsiga ee heer qaran National ID oo waqti iyo dhaqaale badan loo huray si deegaanku uuna uga harin deegaanada la midka ah ee dalka marwaafayeen mudanayaal iyo marwooyin dhanka nabadgelyada oo ah tiirka ugu muhiimsan ee nolosha bulshada iyo mas'uuliyadda ugu weyn ee dawladda 6 bilood ayna dhaafay waxay xukuumaddu guul weyn ka soo hoysay ka hortagidda iyo xalinta khilaafaadka waxaa si degdeg ah xal looga gaaray 8 khilaaf oo la xiriiray isku qabsi dhul iyo deegaamin cusub waxaa ka mid ah isku qabsiyo ka jiray dhul daaqsimeed ku yaal degmooyinka Garbo Sagag Gaashaamo Asdankeyre Elele Taroor Galaadi Erar Kudumbur Lehelow Gursum Baabili iyo Dhanaan waxaa iyadana laga hortagay colaad hor leh oo dib uga qarxi gaadhay labada degmo ee Salaxaad iyo Raaso iyadoo xukuumaddu hadda ku guda jirto sida xal waara looga gaari lahaa dhanka dagaalanka fildambiyeedyada waxay hay'adaha amniga ee deegaanku gacanta ku soo dhigeen 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ku soo xadgudbay
xuduudaha deegaanka si kor loogu qaado tirada iyo tayada ciidanka waxaa tababar loo soo xidhay kumanaan ciidan ah oo cusub kuwaasoo durba kor u qaaday awoodda fulineed ee ciidanka iyo ka hortagga dembiyada dhanka kale waxaa jaamacadaha dalka lagu xareeyey saraakiil tiradoodu kor u dhaafiso 20 si ay aqoon kororsi ilaa heerka labaad ee barashada u qaataan waxaa la soo iibiyey gawaari waaweyn ee rarka taasoo lacag dhan 120 milyan lagu kharash gareeyey iyadoo baabuur 60 ka badan ay ku jiraan nidaamka iibka halka ahmiyad dheeri ah laga saaray dayactirka gaadiid badan oo hore u dayacnaa mudanayaal iyo marweyn dhanka cadaaladda dadaalada lagu toosinayo ama reformka sektorka cadaaladda waxay soo socday sanadihii tegey oo dhan inkastoo natiijadii loo baahnaa aan weli la xaqiijin maadaama isbeddelka hay-adeed uu waqti iyo juhud dheeraad u baahan yahay balse 6 bilood ee tegey waxaa la gaaray guulo gashi fiican u noqon kara in la xaqiijiyo gaarista hadafka aan hiigsanayno tusaale waxaa laga hirgeliyey deegaanka database system lagu kaydinayo heshiisyada caddaymaha iyo dukumentiyada kale ee muhiimka ah taasoo meesha ka saaraysa dib u dhaca go'aanada cadaaladda iyo lumista xogaha loo baahan yahay si go'aan durba loo gaaro dhanka fulinta go'aanada cadaaladda waxaa xafiiska cadaaladdu gacanta ku hayay 1266 fayl oo ciqaab ah kuwaas oo 971 ka mid ah go'aan laga gaaray taas waxay ka dhigan tahay in ka badan 76 la fuliyey sidii qorsho ahaa kiisaska madaniga waxay xiriirlaantu ku guuleysatay inta badan dacwadihii u doodaysay dawladda muddadaas 6 bilood waxay xukuumaddu hormuud ka ahayd diyaarinta xeerarka deegaanku ku dhaqmayo waxaa la ansixiyey 6 bayaan oo cusub halka la dhammaystiray 8 xeer naameed iyo 5 awaamiir oo cusub